bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaal kuna soo dhawaada warka telefishinka qaranka Soomaaliya oo idinkaga imaanaya stuudiyaha TV-ga uu ku leeyahay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. qodobada ugu doorka roon warka uu idin hayo telefishinka qaranka Soomaaliya waxaa kamid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta codkii kalsoonida kala laabtay ra'iisul wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed iyo xukuumaddiisa kadib golaha shacabka kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay go'aankii baarlamaanka Soomaaliya oo codkii kalsoonida kala laabtay xukuumaddii uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed. ra'iisul wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed ayaa isna waxa uu aqbalay go'aankii golaha baarlamaanka ee codka kalsoonida uga laabteen xukuumaddii uu hogaaminayay. wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay soo saartay horumarka dawladda ee toddobaadkii la soo dhaafay iyadoo uga hadashay dhinacyada waxbarashada, xiriirka dibadda iyo arrimo kale. gudoomiyihii degmada Buurhakaba ee gobolka Baay Maxamed Xasan Cali Aamow ayaa waxa uu ku geeriyooday dagaal ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab ku dhaxmaray maanta inta u dhaxaysa Yaaqbari Weyne iyo Balidogle oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta tababar u furay ilaa 70 qof oo isugu jira shaqaalaha dawladda hoose ee Xamar, Culumaaudiin, ururada haweenka iyo waliba dhalinyaro ka dhisan gobolka kaasi oo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan maamulka gobolka iyo saraakiil ka tirsan ilaalada deegaanka. daawadayaal wararka caalamkana waxa ugu weyn qaacidada ka dagaalanta dalka Yemen ayaa waxa ay dileen sawir-qaade u dhashay dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Luke Somers iyo sidoo kale macallin u dhashay dalka Koonfur Afrika, iyadoo dhinaca kalena ciidamada militariga ee dalka Pakistan ay sheegeen inay dileen hogaamiye sare oo ka tirsan ururka Al-Qaacida. daawadayaal intaasi waxay ahaan qaar kamid ah qodobada ugu doorka roon warka uu idin hayo telefishinka qaranka Soomaaliyeed. haatana waxaad u diyaar garowdaan warkaasi oo dhameystiran.